madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa si rasmi ah waxa uu ugu gudbiyay baarlamaanka wadankaasi codsi uu ku dalbanayo in 2 sano lagu kordhiyo muddada ay ciidamada Turkiga ay ka howlgalayaan Soomaaliya iyadoo lagu saleynayo heshiisyada iskaashiga difaaca u dhexeeya Ankara iyo Muqdisho. qoraalka codsiga ayaa waxa lagu sheegay in amniga iyo xasiloonida Soomaaliya ay muhiim u tahay guud ahaan geeska Afrika isla mar ahaantaana kordhinta muddada howlgalka ay saamaxayso ciidamada Turkiga inay sii wadaan taageerada ay Soomaaliya ay ka siiyaan la dagaalanka argagixisada burcadbadeeda kalluumaysiga sharci darrada tahriibka iyo waliba khataraha kale ee amniga. dhinaca kale dawladda Turkiga waxa sidoo kale ay xustay in tan iyo sanadka 2011 si joogto ah ay ula shaqeynaysay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo bixisay tababaro ciidan la talin iyo waliba taageero farsamo oo lagu xoojinayo awoodda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. codsigan ayaa waxa uu tilmaamayaa in dawladda federaalka Soomaaliya ee Turkiga ay ka codsatay inuu sii wado taageerada dhinaca militariga si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka argagixisada iyo waliba sugidda amniga biyaha Soomaaliya iyo marbiyoodka muhiimka ah ee gobolka. haddii baarlamaanka Turkiga uu ansixiyo codsigaasi muddada ogolaanshaha ciidamada Turkiga ee Soomaaliya ayaa 2 sano oo kale la kordhin doonaa marka uu dhamaado waqtiga hadda jira ee ku eg 27 Luulyo sanadka 2026.